maqlayseenba boqor Cusmaan Buurmadow ayaa maantay gelinkii hore waxa laga sii daayay jeel magaalada ku yaal boqorku kama aanu hadlin xarigiisa siideentiisa toonna boqor Buurmadow waa nin hadaladiisu cadcad yihiin oo waxa maskaxdiisa ku jira aan la gaban dhowr jeer oo hore ayaa la xiray haddaba wariyaha BBC-da Hargeysa Axmed Siciid oo aan telefoonka ku wareystay mar dhaweed ayaa iga warramay siideentii boqor Cusmaan عبدالنور داوي عديي بقر عثمان او محمود بورمدو او ان خدك تليفونك كula xiriiray intayna idaacada soo galiyay ka hor wixii xaqiijiyay in xurriyadiisa dib uu helay oo la soo daayay isla marhaantaasina uu ku faraxsan yahay waxa uu sheegay inaan war bixinaynin oo gaabsanayo laakiin wax dambi ah oo uu og yahay oo uu galay aanu jirin isagu uu nabadda ka shaqeynayay waxa kale oo isna aan la xiriiray xildhibaan Caraale oo ruus ku magacdheer wuxuu ii sheegay in damiin lagu soo daayay boqorka oo isagu uu damiintay marka ilaahay haatan inaasay ognay sideentiisa boqor Buurmadow habeen hore ayaa la xiray boqorka waxaana ka soo baxayay warar kala duwan war rasmi ah oo xarigiisa loo sameeyay ama dambi loo haystay ma la sheegay عبدالنور بقر عثمان ومحمود بورمدو كبيدة مدح نقبيدة وعسن مركز صوماليدا خميستي هبين هوري أي صار شيء لقى في هودال كبيدة هودال وين مجالة هرجيسو بليسكو أي صوحرين ساكا إن حرالية جود سوماليان حسن محمد آدن وحو شيء إن لو جود بيجي كير كوين تطبع شو رمانا الله دري بقر بورمدو وأنا هالك لقى سود أي هاتني إمكا وأنا لقى سو أوجي أبوري بقر بورمدو سيد هذا كودي إنه كشيء مناسبات بقنا أو كان علي بطلان تطبعات كي sida hadalka u dhigay hadallo daawac ku ah madax banaanida iyo xuduudaha Soomaaliland kadib markii uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ku bintoona la kala qaado maadaama uu ciidamada Soomaaliland xuduudooda ay ku jimayeen waxa kale oo in xeeraliya guud uu sheegay in boqor Buurmadow uu ka been abuuray madaxweynaha Soomaaliland oo munaasabadaasi dhaqanka uu ka hadlayay uu sheegay in uu kaga wakiil yahay madaxweynaha iyo isimada marka ilahaasi ayaa lagu haystaa boqor Buurmadow markii ugu horeysay oo la xiray ma ahayn laakiin markaan dadweynuhu wax dareena ma ka muujiyeen xarigiisa warta waan xusuustaa laba jeer hore waa sheegnay intii anigu aan shaqeynay BBC oo shaqeynay laba jeer hore mar madaxweyne Riyaal ay hay'adii marka waa la xiray markana waxay madaxweyne Axmed Siilaayo waa la xiray boqor Buurmadow markii dambe waa la soo daayay haatan in xarigan waa kii saddexaad marka gobolka Sanaag oo kale shalayto degmada Ceelafooyin mudaarad ka dhacay Silmiya oo dadweynuhu markaas la soo xiriireen sheegeen inay ka xun yihiin xariga boqorka isla marhaantaasina aanu wax dadiyay galin uu hadal uu jeediyay isla marhaantaasina sidaas ka u dhigayeen dad kale oo madax dhaqameed kale lagu raali galnay bay yiraahdeen saxaafaduna aad ay u qoraysay laakiin waxa kale oo iyadana jira Cabdinuur iyo madax dhaqameed kale oo ugu horeeyay Sultan Maxamed Sultan Cabdulqaadir oo iyaguna qoray oo markii hore lahaa boqorka way la xiraa maadaama uu galka ka dhacay sida hadalka u dhigayeen Somaliland oo imakana sheegay inay ku faraxsan yihiin xarigiisa marka inahaasi ayaa jirta laakiin dad badan oo ehelkiisa iyo dad kaleba qaabka loo qabtay markii booliska ay soo qabanayeen loo maray may ku farxin oo aad ay uga naxsanaayeen